hay'adda xuquuqul insaanka ama komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee gobolka saaxil isuduwa sahal iyo wasaaradda shaqooyinka waxaa kaloo ka dhexeeya wada shaqayn weyn oo wasaaradda shaqooyinka badan waxay xoogga saartaa oo ay ka shaqaysaa ilaalinta xuquuqiyaadka haweenka caruurta dadweynaha nugul iyo kuwa shaqaalahaba marka waxaanu leenahay wada shaqayn ballaadhan oo mid kastaba dhinaciisu kaga jira hawsha qaranka ugu hore waan soo dhaweynayaa hay'adda komishanka qaranka oo runtii markii labaadna gobolka noogu yimid iyo Berbera waan ku faraxsanahay qorshayaashoodii ay ku dejistaan magaalada Berbera waana guul ka shaqaynta xuquuqiyaadka bulshadu waa mid mar walba loo baahan yahay waxaana ugu horeeya in qofku helo qof kasta muwaadin inuu helo nabad iyo amni in aayihiisa laga tashadana oo mustaqbalka nabadeena laga taliyo oo xuquuqdeena laga taliyana waa wax aad iyo aad u weyn runtii qof kasta maanta bulshada ku nool ama Soomaaliland ka mid ah ama gobolkeena ka mid ah ama Soomaaliland ka mid ah wuxuu u baahan yahay ugu horeyn inuu helo amni iyo security lagu ilaaliyo naftiisa iyo noloshiisa sidoo kale wuxuu u baahan yahay inuu helo horumar iyo xuquuqiyaadka shaqaalaha ama xuquuqda kastoo markaa qofkaasi leeyahay xuquuqda waxa weeye waa qodobada koowaad nolosheena inuu qofku amni helo inuu qofku human right helo inuu qofku helo wax weeye horumar laakiin marka amni la helo oo ammaan la helo in ba xuquuqda kale la helaya marka maanta laga tashado arrimaha waan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay waxyaalaha xoogga saaray in xoogga la saaro ka mid ah dadweynaha nugul ay ka mid yihiin dadka naafada xuquuqda in la ilaaliyo dadweynaha haweenka iyo caruurta u badan inta badan tacadud ay ku dhacaan kuwa shaqaalaha oo inta badan anaga cabashada ugu badan soo gaara ay ka mid tahay mar walba isku dayna xaalino marka hay'adda ama komishanka xuquuqul insaanka qaranka raaskaati weyn baan wada shaqayn weyn baan leenahay waan ku faraxsanahay markaan aragnay meesha qorshaha ku dejisanayeen annaga wixii contribution ama aan waxa weeye aan xog hayno waan la wadaagi doonaa kale inta la nool yahay cabash way jiraysaa xuquuqda bini'aadamka meel waa laga dhacayaa laakiin waxa u baahan ka hortag iyo sharciyada aynu ku dhaqayno dadka la adkeeyo oo qof kasta uu dareemo xorriyad iyo xuquuqdiisa uu helayo qarankuna isaga u damaanad qaaday maanta waxyaalaha ka dhacaya gobolka Sool waxa ka mid ah xorriyad oo aad iyo aad loo kiciyo dadka bulshadii anagoo faa'iideysan waxa leeyahay xorriyadu waxa weeyaan wax xuquuqda ugu horeysa ama waxa nabaddu waxa weeyaan wax weey xuquuqda ugu horeysa bini'aadamku inooga baahan yahay marka nabadda gobolka Sool la ilaaliyo oo laga wada shaqeeyo qofku hadduu nabadiisa ku ciyaaro isaga ayaa xuquuqdiisa ku ciyaaray marka waxa weey aad iyo aad ba mahadsantiin assalaamu calaykum.